adduunka casriga ah wuxuu ku dhisan yahay xog, sir iyo qorshe qarsoon, laakiin 3 hay-adood ayaa si gaar ah u sameeyey magac iyo cabsi dunida oo dhan: CIA-da Maraykanka, KGB Midoogii Sofiyeeti, iyo Mossadka Israa'iil. 3dan hay-adood waxay ahaayeen maskaxdii dagaalkii qaboobaa, gacantii qarsoodiga ahayd ee dowlado awood leh, iyo indhihii daaha ka qaaday siraha ummadaha kale. Bal aan galno dunida sirdoonka, halkaas oo runta iyo beentu ay isdhex yaacaan. CIA waxaa la aasaasay sannadkii 1947 kadib dagaalkii labaad ee adduunka, iyadoo la doonayay in Maraykanku yeesho hay'ad sirdoon oo ka hortagta cadowgiisa cusub oo uu kala jeedo Midoogii Sofiyeet. KGB oo si rasmi ah loo dhisay sannadkii 1954 waxay ahayd gacanta birta ah ee xukuumaddii Sofiyeetka. Waxay isku darsatay sirdoonka dibadda, ammaanka gudaha, iyo kormeerka siyaasadeed. Mossad, dhanka kale, waxaa la dhisay sannadkii 1949, hal sano kadib aasaaskii Israa'iil. Ujeeddadiisu waxay ahayd difaaca dowlad cusub oo ku dhex jirta cadow badan iyo raadinta xogta muhiimka ah ee amniga qaranka. Hay-adahan waxay adeegsadeen xeelado kala duwan oo qarsoodi ah, laga bilaabo basaasiin, sirdoon, tiknoolajiyad, ilaa dilal qorshaysan. CIA-du waxay caan ku noqotay howlgallo qorshaysan sida afgembigii Iiraan ee dhacay sannadkii 1953, iyo Guatemala sannadkii 1954. Waxay ku shaqaysaa si diblomatig ah, laakiin ayadoo mararka qaar jebisa xeerarka caalamiga ah. KGB waxay ahayd maskaxda basaaska, waxayna xirfad u lahayd psychological warfare, dagaal maskaxeed. Waxay tababartay kumanaan basaasiin ah oo dunida oo dhan lagu faafiyey. Mossad waxay caan ku tahay howlgallo aad u halis badan sida qabashadii Adolf Eichmann ee Argentina sannadkii 1960, iyo dilalkii qorshaysanaa ee kooxdii Munich ee sannadkii 1972. CIA-du waxay adeegsatay awood dhaqaale iyo farsamo. KGB waxay adeegsatay cabsida iyo xakamaynta bulshada. Mossadna waxay isticmaashay sir iyo xeelad culus oo ku salaysan badbaadinta Israa'iil. Intii uu socday dagaalkii qaboobaa sannadihii 1947 ilaa sannadkii 1991, CIA-da iyo KGB waxay ahaayeen laba geesi oo ishaya, mid walba isku dayaya inuu ogaado sirta kan kale. CIA waxay la safnayd NATO, KGB-na waxay ahayd qalbigii Warsaw Pact. Markii hal basaase la qabto, waxaa la ogaan jiray in kumanaan kale ay qarinayaan siro kale. Dagaalkii qaboobaa ma ahayn dagaal rasaas, balse wuxuu ahaa dagaal sir iyo khiyaano. Maanta, CIA-du waxay sii haysaa awoodda ugu weyn ee sirdoonka caalamka, iyadoo adeegsata tiknoolajiyad casri ah sida AI iyo cyber intelligence. KGB-da hore waxa ay dhashay FSB-da Ruushka oo sii waday dhaqankeedii sirdoon ee Sofiyeetka. Mossadna waxay noqotay mid ka mid ah hay-adaha ugu casrisan ee caalamka oo caan ku ah howlgallo suuq madow iyo xog ururin degdeg ah. Dunida maanta, sirdoonka waa hubka ugu awoodda badan. Xogta ayaa noqotay rasaas, internetka ayaa noqday goobta dagaalka cusub. Marka aan eegno CIA, KGB iyo Mossad, 3daasi hay-adood waxay u taagan yihiin 3 falsafadood oo kala duwan. Mid waxay aaminsan tahay dimuqraadiyad iyo dan guud oo ah CIA, mid kalena nidaam adag iyo cabsi KGB, midna difaac iyo badbaado qaran oo ah Mossad. Laakiin mid walba hal shay ayay wadaagaan: rumaysnaanta in sirta ay ka awood badan tahay rasaasta.